awoodda aamusnaantu waa fikirka urursan waxayna ka awood badan tahay erayada lagu hadlo waayo hadalku wuxuu ka jeediyaa wax walbo aad diiradda saartay awoodda maskaxdu waxay soo jiidataa dareenka wax ka maqan ma jiro awood ka xoog badan aamusnaanta fikrad walba oo maskaxdaada ku jira xajiso oo ha ku kala firdhin fagaaraha sirta dadka waaweyn ayaa ah aamusnaanta naftooda iyo awoodda ay u leeyihiin boqortooyadooda mar walba xoogga saar shaqada gacantaada ku jirta kana ilaali kala daadashada haddii hal jid kaa xirmo ogow inuu jiro boqolaal jid oo kale ninka caqliga badan tuulada uu ku nool yahay kun jid oo laga galo lagana baxo ayuu garanayaa halka ninka xikmadda badan xikmaddiisu uu ku faafiyo gees kasta isagoo la hadla kuwa nacasyada qoraaga xariifka ahi kuma khasaariyo saaxiibadiis gees walba balse wuxuu ku xiraa khaanad xogtiisa kabtanka warshadaha wuxuu dadka ku soo jiitaa caqligiisa iyo xirfadiisa xitaa markii uu yaraa wuxuu ku fikiri jiray inuu kabtan noqon doono halka asxaabtiisu ahaayeen kuwa hadal iyo fanfaan badan waliba isaga wax sheega kabtanku maanta mustaqbalkiisa wuu ku guulaystay wuxuuna ahaa sidaadoo kale balse dadaal fiican geliyay inuu kabtan warshad noqdo ku dadaal wax kasta oo aad samaynaysid adigoo og in wax badan oo wanaagsan kaaga iman doonaan rabbigana talada saaro si wax walba kugu hagaagaan ku dadaal naftaada waxqabadkeeda hana khiyaamayn naftaada una soo bandhig hawl walba oo aad doorbidid mustaqbalkaaga inaad samayso ha ku lumin waqtigaaga waxyaabo aan u wanaagsanayn mustaqbalkaaga ha ku lumin waqtigaaga kuwa hareerahaaga taagan dhaleeceeya isku daygaaga kaydso fikradahaaga wanaagsan haddaad qoraad tahay kaydi qorshayaashaada dhalaalaya haddii aad nin ganacsade tahay kaydso qorshayaashaada aad doonayso inaad ku horumariso ganacsigaaga haddaad tahay mas-uul iska ilaali damaca aad ku kala firdhinaysid jihooyinkaaga ka hor inta uusan soo jiidan dadka aad mas-uulka ka tahay ee doonaya inaad ku madadaaliso show bilaash ah waxaa jiri doona waqti in badan laga hadlo guushaada mar haddii ay dhab ahaan u dhacday dadku waxay u badan yihiin kuwa jecel inay isku dayaan inay joojiyaan ama kula taliyaan kaliya u muuji ujeedooyinkaaga iyo himilooyinkaaga kuwa aad og tahay inay noqon doonaan kuwa ku caawiya kuna dhiirigelin doona la wadaag maskaxdaada kaliya dadka u qalma u bedel riyooyinkaada kuwa xaqiiq ah si kuwa maanka iyo itaalka daran uga adkaato kuwaasoo leh iska caabin maskaxeed oo yar xusuusnow inaad ku jirto loolan adag xajiso xalkaaga gudaha adigoo aamusan hadalku wuxuu farageliyaa awoodda ay maskaxda xoogga saartay maadaama ay meesha ka baxday fajignaantii ugu yaraan waxaad u baahan tahay inaad waqti qaadatid si aad uga fikirto in aadan si dhaqso ah uga jawaabin waa laga maarmaan inaad aamusto mar haddii aadan si xikmad leh u hadli karin xusuusnow in tallaabada ugu horraysa tahay fajignaan weliba samayso muuqaal maskaxeed oo ah waxa aad rabto inaad ku guulaysato sawirkani wuxuu noqdaa abuur fikir oo soo jiito dhammaan fikradaha dabeecadda la mid ah waxaa lagu beeraa mala-awaalka ama qaybta hal abuurka ah ee maskaxda soo saaruhu waa inuu ka shaqeeyaa fikraddiisa maskax ahaan ka hor inta aanu soo saarin ama kamira dhalkii injineerku wuxuu marka hore ku sawiraa maskaxdiisa guriga uu doonayo inuu naqshadeeyo shay kasta aalad kasta iyo weliba shirkadaha dunida ka jira waa hal abuur ay sameeyeen rag sidaadoo kale ha ogolaan naftaada inay sawirato sawirro xunxun oo kuu horseeda saboolnimo ku fikir caafimaad farxad hanti iyo weliba sharaf iyo magac aad bulshada ku dhex yeelata si ay ku xusuustaan markaad dunida ka tagto waxaad u sheegtaa 5 qof qorshayaashaada hodanka ah iyo guushaada fursadaheeda ugu yaraan 2 ama 3 ka mid ah waxay ku ridi doontaa fikirkaaga badh fikir la'aan marka waxay dadku sidaan u sameeyaan jawaabtu way fududahay dadka badankood ayaa garaaca barnaamijyada maskaxda oo noo sheegayo inaan ku guulaysan karno iyo inaan ku guulaysan karin waxay aaminsan yihiin iyaga ama qof kasta oo ay garanayaan inay gaari karaan heer wax kasta tani waxay ku anfacaysaa inaad sii haysatid qorshooyinkaaga nolol wanaagsan ee naftaada ah inta aad ku sii kobcayso booskaaga waxaa jiri doona waqti badan oo looga hadla guushaada mar haddii ay dhab ahaantii dhacday waqtiga la sheegayo waa kadib markaad gaartid yoolalkaaga ma ahan wax khatar ah in la siiyo fursado qaar ah shakhsiyaadka murugada leh ee isku dayaya inuu ka niyad jabiyo
inaad samayso waxa qalbigaaga ku jira. haddaad hayso hadafyadaada iyo hadafkaaga, dadka waxay u badan yihiin inay isku dayaan inay joojiyaan ama kugula taliyaan waxay doonaan. kaliya u muuji ujeedooyinkaaga iyo himilooyinkaaga dadka u baahan inay ogaadaan ama kaa caawin kara inaad higsashadaada sii wado. si degdeg ah ula wadaag ujeedooyinkaaga kuwa aad og tahay inay noqon doonaan kuwa kaa caawin doona kuguna dhiirigelin doona. la wadaag maskaxdaada dadka kaliya ee u qalma.